financial accounting ku sii xirmaya marka si automatic ah waa bookkeeping kan soo dhameynay financial accounting ku sii xirmaya financial accounting deals with recording and reporting financial transactions iyagana maartay waxa loo baahan yahay recording kiyan wali ku jirnaa iyo warbixintii diiwaangelintii skills required waxa weeyaan in qofku uu yaqaano nidaamka double entry la yiraahdo financial accounting waa inuu yaqaanaa formula jirta marka double entry oo maartay maxaan ku daayay debits iyo credits la yiraahdo insha Allah taala waa ka sheekeyn doonaa laakiin formulada ugu weyn ee accountancy xisaabaad markaan ka sheekeynayna inaan barano loo baahan yahay waxay tahay assets equals liabilities plus capital hantidu waxay la mid tahay qaanta waxay ina lagu leeyahay oo lagu daray wixii inaga aan raasamaal ahaan meesha ku darsanay qof baa laga yaabaa inuu iibsado hotelki waxaa laga yaabaa 1 million inuu ku iibsado hanti ahaan buuggiisa waxaa ugu qoran 1 million asset inuu leeyahay laakiin waxaa laga yaabaa 50% inuu banki ka soo amaahday micnaheedu waxay tahay marka liabilities meesha ku jiro oo jeebkiisa kalama iman wax walba liability-gaas oo 50% markii lagu daro jeebkiisa intuu kala yimid oo 50% ahayd maxay isku tahay account waa inay miisaamtaa marka assets ki equals liabilities plus capital haday liabilities meesha jirin zero waa qoraysaa laakiin fundamentally waa ina still qortaa liabilities plus capital inay la mid tahay assets Soomaali ahaan waxaan dhahnay hantidu waxay la mid tahay qaanta oo lagu daray raasmaalka account marka financial accounting complicated ma dadka qaar kood waxay moodaan in calculus iyo trigonometry wax loo baahan yahay no all you need is how to add and how to subtract inaad wax kala jari karto oo aad wax isku dari karto xataa timeska xataa uma baahnid oo uma baahnid waxa la yiraahdo divisionka aan si sahla dad badan ay isqori dooneen marka waxaan rajaynaynaa inaan ogaano cilmigan xisaabaadka iyo maaliyadda personally adoo ku anfacaya inaad barato oo adiga xataa isku qiyaasto assets equals liabilities plus capital hadaad barato oo aad si fiican intaad fariisato aad u ogaato qaynuunkaas waxa aan rajaynayaa in aad ma aragtay financial accounting inteeda kale hantida marka waxay tilmaamaysaa dhaqaalaha milkiyad ahaan ganacsigu leeyahay qaanta waxay tilmaamaysaa dhaqaalaha ganacsiga lagu leeyahay saamiguna wuxuu yahay danta dhaqaale ee u gaarka ah milkiilaha waa very clear waa arin cad weeyaan saddexdan mar walba kala saar ugu labada hoose inay israacayaan totalkoodana kan kore inuu la ekaado ay tahay miisaan ahaan okay what can be classified as an asset marka asset maxaa hoos iman kara hanti waxaa noqon kara shay qiimi lacageed leh ama la lacageyn karo mustaqbalka hanti waxaa noqon kara shay cash ah ama equivalent to cash oo ma aragtay waxaa noqon kara sida tusaale ahaan xisaabta banka ku taal waa lacag cadaan oo ku xisaabtami kartid oo hanti intaas ma ii taala dhigi karto deynta ka maqan ee laga amaahday hadayna noqon deyn xumaatay oo aan la soo celinin laakiin waa hanti aad ku xisaabtamayso in ku soo laabato badeecada baqaarka taalo sanadka markii la xiro oo badeecadii aad sales marka iibisid wixii soo haray waa hanti aad lacageyn karto aad iibin karto soo maaha marka hantidu waxay noqon kartaa wax lacag cadaan ah ama la lacageyn karo mustaqbalka what can be classified as liabilities marka qaanta waxay noqon kartaa dhaqaalaha aan ka amaahanay dadka ama hay'adaha qof waxaad ka soo qaadatid ama aad baqaara lacag waxa ka soo qaadatay loor sokor ah lacagtii ma aadan siinin waa soo cadeynaya tiri dawaqaan lagu leeyahay oo sugayso bixin marka waa qaan hay-adaha waxaan ka soo amaahano bankiga kala guri ii dhisaa tiri 30 sano ama 15 sano ku bixinaya guri 1 milyan oo ku dhisay adiga ma lihid guriga adaa iska laha lagu leeyahay laakiin waa qaan bixin u taagan haba fogaatay waqtigeeda way kala deynta iyo qaantu way kala duwan tahay mid waqti dhow laga doonayo short term iyo mid long term ah marka bank waan ka amaahan karnaa qaybiyaha ama supplierka af Soomaali ahaan waxaan jeclahay inaan ma artay aan arbixin ama terminology aan af Soomaali ahaan aan ku isticmaalno insha Allah taala dad iga codsaday in wax walba English lagu soo wada qoro marka Soomaali aan soo diray survey iga tahay sida aad u xiiseynaysaan insha Allah waa noo sheegi doontaan haddaan doonno mustaqbalka waxaan ku wada diyaarinaynaa
Soomaali oo keliya haddaan doonana English oo keliya haddii kalena waa isdhexgelinayna marka waxay demandkii ku xiran tahay isla u baahan tihiin insha Allah debits and credits waa term aad loogu wareeray debits and credits waa muhiim inaad kala barato labadan term debits and credits maxay kala yihiin maxaa lagu cabiraa xisaabiyuhu waxa uu ku cabiraa xisaabaha koror iyo nusqaan debit daa maqashid waa koror credit daa maqashidna waa nusqaan wax allaala wixii kordhinaayo ma aragtay business interestkaaga equitygaaga kordhinaayo debit aan leenahay wax allaala wixii equityga maxaan dhahan equity maxay ahayd the owner's business interest wax allaala wixii naaqusinaayo ama dhimaayo waxaan leenahay credit marka termkaas aan maskaxda ku register gareyno debit and credit debit wax allaala wixii noo kordhinaayo waaye hantida innaga aan meesha ka eeganayno creditna wax allaala wixii nusqaaminayo waaye hantida meesha aan ka eeganayno marka taas aan ku kala saarno asset account marka maxaa noqon karaa xisaabta hantida ah haddii ay wax ku jiraan balance hadduuba jiro ama wax lagu soo kordhiyo waxay noqonaysaa koror ama debit ayay noqonaysaa tusaale ahaan bangigaaga $100 haddaad dhigtid xisaabtaas bangiga maxay tahay waa an asset account soo maaha an asset account haddii wax lagu daro maxaa dhacay koror haddii ma aragtay maxaan kula wax laga dhimana nusqaan marka an cash accountiga haddaad ma aragtay wax ka bixisid credit ay noqonaysaa haddaad wax ku dartidna debit intee ka cabiranaysaa what is my business interest maxay tahay waxa aan ka eeganaya meesha hantidayda wixii hoos u dhigayana waxaan leeyahay nusqaan wixii kor u dhigayana waxaan leeyahay koror debit and credit clear okay next marka liabilities saddex shay hadday hore usoo sheegnay assets liabilities iyo capital saddexdaas marka aan kala saarno marka liabilitieska xisaabta liabilityga ama qaanta ah qaanlaha ama saamileyda labadaba liability waay ganacsiga iyo waxaa la kala saaraa nin kale waa la kala saaraa mar walba ninka iska leh isaga naftirkiisa waa a creditor wuxuu lacag ku leeyahay ganacsiga $10,000 uu ganacsi ku bilaabay la iloobi maayo maalintuu maaragtay ganacsiga lacagta dhigo waa in loo ogaadaa $10,000 meesha inuu ninkan ku bilaabay waa marka creditor waa asiga naftirkiisa marka waa israacin kartaa qaanlaha iyo saamilaha labaduba balance sheetka markaan qorayno at the bottom ee fariistaan soo maaha waxayna la mid yihiin assetskay la mid yihiin oo hantida ah marka xisaabta qaanlaha ah ama supplier hadduu yahay ama hadduu yahay owner hadduu yahay ganacsigu wax ku leeyahay haddii marka ay wax ku jiraan balance hadduu jiro waxaa lagu tilmaamaa nusqaan sababtoo ah waxaan looga baahan yahay waa aan bixinayno soo maaha waa nusqaan haddii ay koror jiro haddii wax ku soo daraan contribution haddii ownerka $10,000 oo kale hadduu ku soo contribute kareeyo ganacsiga soo u balaado waxaan leenahay the opposite oo ah debit aan leenahay soo maaha okay totalka marka jamaca markaan fiirino haddii aad isku darto waa mahadsantahay haddii aad isku darto xisaabaha hantida oo dhan haddaad isku darto waa inay la mid noqdaan isku darka xisaabaha qaanleyda ama liabilities ama creditors aan dhahna haddaan rabno iyo saamileyda oo ah shareholders ama the owner labadaa markii la isku daro mar walba waa inay la mid noqdaan hantida marka balancekaas marka mar walba equationkaas aan ilaalino statement of financial position bayaanka heerka maaliyadda marka tusaale ahaan aan fiirino bayaanka heerka maaliyadda markaan fiirinayn say u kala dhacaan hantida dhinaceeda waxaa kuu soo gelaya cash lacagaha caddaanka ah accounts receivable lacagaha deyntana oo annaga aan lacagaha dadka aan amaahinay ee aan sugayno in inala siiyo inventory badeecada dukaanka ku hadhay ama ma aragtay maxaan ku daayay baqaarka taalo investment lacago oo hadday maalgashi hadduu jiro waa asset investment meel haddaan $1,000 aan ku darsado is an asset lacag aan xisaabsanayo waa ilahaanshaheeda soo maaha property plant and equipment hadday jiraan dhul dhismo iyo maaragtay maxaan ku dahay warshad adi aad leedahay hadday jirto waa hanti waxaasoo dhan hantiyaa la yidhaahdaa wixii hanti aad leedahay meesha iskugu imaanayaan mar walba waxay qaadanayaan marka a debit balance koror weeyaan hantidu maxay kordhisaa jeebkaaga koror marka aan xasuusanno ereygaas liabilitieska dhanka kale markaan fiirinayno waa wax allaale wixii nusqaaminaya hantidaadi soo maaha accounts payable
haddii maaragtay deynna lagu leeyahay oo bixis ay sugayso dee hantideenni laga sugayaa inaan ka bixino soo maaha waa nusqaan bank loan haddii aan bangiga aan wax ka soo deensano waa nusqaan long term liabilities muddo fog haddii maaragtay guri walaalka hadduu ku iibiyo ku dhaho iska soo celi $100,000 bil kasta maaragtay $500 aad shaqaysatid 250 iyo soo dir oo kuu sii dhiso waa nusqaan lacag maaragtay hantidaada mar walba aad ku tashanaysid planning aad samaynaysid aad ku tashanaysid inaad bixisid waxa kaloo iyadana nusqaan noqonayso the equity ownerkii lacagtii uu ku bilaabo meesha ama uu kusoo contribute gareeyay iyadana ownerkaasaa sugaayo waxaan dhahnay separate legal entity waxa la yidhaahdo ama separation of ownership and control waxaan kala saarnay lahaanshihii iyo controlkii ama xakamayntii ama ilaalintii aan kala saarnay directorka ama hogaamiyaha hadduu meesha lahayn skillkiisa lagu qaatay waa hogaamiye laakiin milkiiluhu maalkiisa waa in loo xisaabaa soo maaha marka equity waxaan dhahaynaa waa nusqaan total credit say isku noqonayaan marka dhinacan midig xisaabaadka waxayna la mid yihiin surprise 14,700 dhinaca kalena 14,700 14,700 marka way shaqaynaysaa equationkii aan kusoo bilownay ee ahayd assets equals liabilities plus capital soo maaha okay accounting systemska aan ka hadalno marka sources of balance sheet items balance sheetkii hadda aan aragnay ama statement of miisaaniyaddii hadda aan aragnay statement of financial position waxyaabaha ku jiro dhan halkay ka yimaadeen bookkeepingkay ka soo bilowdeen soo maaha kadibna accountingkay usoo gudbeen waa bayaanka miisaaniyaddu waa natiijo laga dhaxlo isticmaalka nidaamka xisaabaadka accountancy systemkii aan dejinnay waxaan ka dhaxalnay inaan diyaarin karno bayaanadaasoo summary u ah mucaamalaadkii maalin walba aan qabanaynay summarigaas oo qof walba uu fahmi karo oo easy to understand reliable dad skill leh ay soo diyaariyeen understandable ma aragtay cost effective ilaahay hadduu idmo marka tirada lasoo bandhigayo waxay aalaaba ka timaadaa boqolaal kumanaan ama malaayiin mucaamalo ka soo qaad haddaan dhahno Barclays Bank ama HSBC ama ma aragtay maxaan ku dahay Lloyds Bank bangiyada caalamiga ah ama ma aragtay Bank of America just imagine meeqa mucaamalo dhacayso waa malaayiin laakiin waxay ku soo ururaysaa statement of financial position waxaan u malaynayaa hadda statement of financial positionka Barclays dan soo saaro inaad aqriyi kartaan oo aad fahmi kartaan maxaa asset maxaa liabilities maxaa capital mid walba cinwaanada hoos imanaya maxay kala yihiin marka way sahlan tahay really haddii aad attentionkaaga saddexdaas aad kala barato marka accounting processka waxa weeyaan chart of accounts kay ka bilaabataa chart of accounts waxa weeyaan ganacsigu marka uu bilaabanayo waa inaad ogaataa wax allaale shax xisaab walba ama mucaamalo kasto aad ku tashanayso mustaqbalka inaad adeegsato waa inay ku qoran tahay okay deynaan bixinayaa waa inaad credit account gashitid inventory I want to keep inventory inaad inventory account ku darsato cash basis aan ahay cash account inaad ku darsatid saasaad marka iska mala awaal ma aha xisaab degsan chart of accounts degsan oo mar allaala ganacsigaaga markuu weynaado mucaamalo cusub ee kusoo kordha aad sii update garaynaysid loo baahan yahay inaad diyaarisid chart of account ka bilaabanaya intaan journalskaba la gaarin kadib waxaa ku xigo journalskiyaa ku xigo journal interestkii mucaamalaadkii sidii loo kala maaragtay maareyn lahaa oo t accountskii iskugu keeni lahaa diiwaanka guud ee general ledgerka loo yaqaanay marka ledgerskia ku xigo step 1 waxaa waaye chart of accountski inaad marka hore aad analysis inta ku samaysid aad dejisato journalskia ku xigo journalska waxaa kusii xigo general ledger inaad iskugu wada keentid ama diiwaanka guud waxaa kusii xigo trial balance inaad diyaarisid waxaa kusii xigaya financial statementski inaad diyaarisid waxaad dareemi kartaa marka steps oo cad inaad soo martay stepskaasoo aad ka soo bilowday marka hore inaad ka fikirtid what do I need business ahaan maxaan u baahanayaa xisaabaadkaygu xisaab waxaa la yidhahdaa an account xisaabahaas inaad ku fikirtid meeqa xisaab ayaan u baahanayaa haddaad kuraas aad iibisid ma aragtay maxaan ku dahay looxaad soo iibsanaysaa ma aragtay waxaa soo iibsanaysaa maradii lagu dhijin lahaa waxaa soo iibsanaysaa ma aragtay rinji waxaa soo iibsanaysaa stationery ma aragtay xisaab kasto siday kugu imaato waxaa kusoo darsanaysaa diiwaankaaga shaxdaada kusoo darsanaysaa waxyaabaha isticmaalaysid haddii aad manager tahayna waxaa laga yaabaaba inaad saxiixdo aad dhahdid shaxdan waxaan ogeyn laguma soo dari karo
okay chart of accounts ka marka waa xisaabaadka hoos imanaya saddexda cinwaan assets liabilities iyo accounts markaan dhahno xisaabaad saddexdaana ra'iisi u ah saddexdaanay hoos yimaadaan income and expenses account inuu idinka maqan yahay u malaysaa laakiin income and expense account waxay ka mid tahay statements of change of equities waxa waaye business interest waxa loo yaqaano ama hadafka aan ka leenahay ganacsiga oo ah hantideenna ninka ownerka ah chart of accounts-ka maxaan ku radaa income statements iyo expenses-ka waxay hoos imanayaan sanad walbaba ama waxay nusqaan ka noqonayaan lacagihiisii ama waxay korar ku noqonayaan lacagihiisii soo maaha so markaas income and expenses account si gooni ah u diyaarinana laakiin aan ogaano in general waxay hoos imanayaan equity ay hoos imaadaan marka statement of profit and loss haddaad iska ilowdo balance sheetka keliya haddaa aragtid waa income iyo expenseski waxay soo hoosgelayaan capital area markaad joogtid owners equity ayay soo hoosgelayaan hadday jirto ma aragtay faa'iido sanadkii hore lasoo faa'iiday waa loogu darayaa hadday khasaaro jirtana isagaa laga dhimayaa soo maaha 10 kun hadday meesha u taallay sanadkan haddii ma aragtay kun la khasaaray de 9 kun usoo harayso haddii 20 kun la faa'iidina 30 kun ay tegaysaa xisaabtiisa marka balance sheetkay soo gelaysaa owners equity-gay soo gelaysaa performance-gii sanadkii lasoo dhaafay okay waxaad saxdan ku dari kartaa inta xisaab ee ganacsigaaga doonaya in walbo ganacsigaaga uu doonaya aad ku dari kartaa okay journalka halkan waa goobta aan ku diiwaan gelino dhacdooyinka mucaamalaadka oo idil wax walbo dhacaya meeshaan ku diiwaan gelinaa hadday tahay iibin ma aragtay aan iibinayna wax soo saarkeena hadday tahay bixin mushaaraad hadday tahay ma aragtay deemihii aan soo ururinayno hadday tahay badeeco aan soo iibsanayno hadday tahay biilasheena aan bixinayno waxaas oo dhan product sales salary payments collecting receivables wixii oo dhan account kasta ama mucaamalo kastoo dhacdo account ay dabada la gelaysaa oo waxaan ogaanaynaa in mar walbaba laba dhinac inay saameynayso waa muhiim account kasto ama xisaab kasto waa inay laba dhinac saameysaa waxbaad soo iibsatay dee cash accountigu wuu dhimayaa wixii aad soo iibsatayna wuu kororaya marka labadiiba waa inaad og tahay haddaad hal dhinac aad samayso oo dhinac kale aadan sameynin xisaabaad ma diyaarin kartid marka waa inaad ogaataa saameynta ay ku yeelanayso labada dhinac mucaamalo kasto mucaamalo aan laba dhinac lahayn ma jirto journal tusaale ahaan journalka haddaan aragna marka sidana loo qoraa faahfaahin ayaa kor lagu qoraa ma aragtay kadibna taariikhdiyaa la qoraa kadibna xisaabta ay ka baxaysa iyo xisaabta ay gelaysaa la qoraa lacagihii oo debit and credit koror iyo nusqaan xisaabta waxay tahay ku xiran tahay xisaabta xisaab hanti hadday tahay waa koror xisaabta xisaab ma aragtay maxaan ku daayay liabilities hadday tahay wax lagu leeyahay hadday tahay waa nusqaan soo maaha marka saas midig iyo bidix maxaan lahaa Luca Pacioli aan la dhihi jiray ninka soo saaray nidaamkan double entry bookkeeping la yiraahdo somehow ma aragtay midig iyo bidix oo doortay I don't know why laakiin ma aragtay sidaas lagu sii daayay bidix mar walbaba waxa lagu qoraa assets and expenses midig mar walba waxa lagu qoraa income and liabilities soo maaha marka waxa waaye midig iyo bidixdaas hala kala ilaaliyo kadibna jamci ama totalkii u sameynaysaa marka journal entry markii la dhahayo caadi ahaan hadda computerized system la isticmaalaa meel aad ku qoraysaa meel aad ma taqaanid waa ku diiwaan gashay laakiin on paper haddaad ku qoraysid this is how to do it general ledger-ka isna qaabkaana asna loo qoraa general ledger-ka caadi ahaan waxaa ku qormaayo xisaabtan hadda ma aragtay maxaan ku daayay general ledger-ka ku jirtaa waa xisaabta lacagta caddaanka ah marka cash accountiga sidaana loo qoraa waxaa qoraysaa taariikhdii waxaa qoraysaa mucaamalada noocay tahay waxaa qoraysaa ma aragtay meesha ay ku kordhayso meesha ay ka nusqaamayso kadibna totalsa u sameynaysaa markaad fiirisidna waa isbalance garaynaysaa mar walba okay liiska xisaabaadka ama trial balance-ku wuxuu kulmiyaa gebi ahaan xisaabaha mucaamalaadka ganacsiga saddexdii qaybood uu kulmiyaa waa list inta aan la diyaarin bayaanka heerka maaliyadda iyo bayaanka faa'iidada iyo khasaaraha ayaa waxaa la diyaariyaa trial balance waxa loo yaqaano trial balance waxa loo yiraahdo waa inay miisaamantaa labada dhinac waa inay miisaamantaa
labada dhinac haddii ay qalad ku jiro waxaad ku ogaanaysaa trial balance-ka ma miisaamayso waxaa arkaysaa inay kala badan tahay kadibna investigationa bilaabaysaa ay habka ay ku noqotay haddii ay jirto wax aad og tahay oo gadaal aad ka sixi kartana suspense account ku diraysaa oo hadhowna aad u yeelaysid sharaxaad aad ka bixinaysid marka waxay xisaabaadkii hantida meesha galaayo xisaabaadkii maaragtay qaantii lagu lahaaya meesha galayso xisaabaadkii capital accountiga ah meesha galaayo waa in ay balance miisaan ay samaysataa okay jamaca xisaabaadka kororka leh waa inay la ekaadaan jamaca xisaabaadka nusqaanka leh all debits must equal all credits okay goortaad diyaariso liiska xisaabaadka waxaad diyaarin kartaa bayaanada maaliyadeed okay bayaanada heerka maaliyadda marka ama statement of financial position magaca cusub horena waxaa loo dhihi jiray balance sheet marka ma aqaan haddaad arki kartaan waa shirkad jirto oo run ah waaye marka waxaan kurdayay saa ujeediin nidaamka ama standardka loo qoro waa sidaan haddaa waxaan idin tusay labada dhinac si wax u kala galaan laakiin hadda standardka idin tusaya sida loo qoro waa saan waxaa ugu horeeya assetskaas oo usii kala sameynaysa classification current assets aa qoraysaa current asset waxaa hoos imaanaya cashkii iyo inventory-gii total current assets aa qoraysaa kadib fixed assets aa qoraysaa leasehold improvement hadday jirto wax ma aragtay maxaan kudaaye lacag aad gurigaaga ku hagaajisay ama ma aragtay aad gurigii leaska aad ku baawur lease aad ku qaatay hanti aad ku hagaajisay hadday jirto waa capitalize garayn kartaa accumulated depreciation masi gudaha ma usii gelayna laakiin hanti kasto qiimo dhac ayaa ku dhaco depreciation waxa la dhahayaa qiimo dhacaas for example gaari aan soo iibsaday waxaan ogahay 5 sano inaan si fiican u wadan karo kadibna motorka u xumaanayo lacagtii aan ku soo iibsaday 5 sano u kala qaybinaya 5 kun aan ku soo iibsaday sanad kasta kuna iska sii tuuraya gaarigii 4 kuna qiimihiisii ku hartay 3 kuna ku hartay 2 kuna ku hartay gaarigan marka naf ma lah waa inaan iska sii iibiyaa haddii waxay iga soo baxayaan scrap value wax la yidhahdo haddaan helayo oo qof ma aragta kasii faa'iidaysan karo aan ka iibinaya haddana mid kalean soo gadanaya shirkadaha saasay sameeyaan samayntiisii iyo ma aragtay maxaan ku hawl kale inay geli lahaayeen waxay iibsanayaan gawaari shaqaalaha ay u isticmaalaan waqti cayiman uu leeyahay waqtigaas cayiman markii la gaargaaray hadduu fiican yahay xataa waa lasii iibinaya scrap value-gii mid cusubaa lasoo qaadanaya haddana shirkadda laga soo qaadanaya marka depreciationka saas usoo galaa insha allah mar kalaan ka sheekeyn doonaa laakiin depreciation waa sidaas total fixed assets-kia meesha imaanaya marka hantidiyaa soo ma aragtay maxaan ku dahay aad soo dhamaysa marka other fixed assets hadday jirto ma aragtay trademarks sumcad haddaad leedahay haddaad ma aragtay maxaan ku dahay hadday jirto wax accumulated amortization waxa la yidhahdo oo ah intangible assetska ama hantida aan la taaban karin mar kale aan ka hadli doonaa hantida waa mid la taaban karo mid aan la taaban karin sumcaddu waa hanti waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood sumcad ahaan in loo tago oo soo jiidasho ay leedahay sumcaddaas caadi ahaan lacagaa la dul saari karaa haddaad sii iibinaysid waxaad dhihi kartaa gurigan waxaa ku jirto hanti intaas la eg $10,000 laakiin sumcadaan sameeyey 5 sano oo soo dhaafay ganacsigan aan ku jiray sumcaddaas intaasaan kaaga iibinaya good will ayaa la yidhahdaa marka customer waxaan hayaa ilaa intaas oo qof haddaad taleex meel kale ka furtid customer kale inaad adi abuurtid waaye kuwayga haddaan kugu wareejinayo intaana lacagahaad ma aragta maxaan ku daayay sumcaddaas aad igu siinaysaa intangible assets ayaa la yidhahdaa laakiin iyada naftirkeedu way qiimo dhacdaa amortization sida assetska caadiga ee depreciation lagu sameynayo intangible assetskana amortization lagu sameeyaa marka waa magaci un baa kala duwan laakiin principle is the same total assetska meesha ka eegan kartaa hadda numberka aan ujeedno waa 182,600 kadibna waxaad ka jaranaysaa marka total assetka markaa heshid liabilitieski waa sii kala saaraysaa current iyo long term aa u kala saaranaysaa oo ah midda hadda taagan current waxaa la yidhahdaa 12 bilood soo socoto waxa inaan bixinana laga filanayo wixii 12 bilood ka dheerna long term aa la yidhahdaa caadi ahaan current liability accounts payable-ka haddaan lacag dad ka soo deensanay 12 bilood ka badan inaan ka qabno waa laga fiican yahay waxay rajaynayaan lacagtooda inaan dib ugu celino sanadkaas xisaabeedka markaan xirno aan dib ugu celino haddiiba aan go-aankaas aan ku heshiinay waxaa kaloo jirto accrued expenses waxa la yidhaahdo accrued expenses waxaa la yidhaahdaa korontaa soo xiratay beekaa kuu xiran ka soo qaad waxaad isticmaalaysa bil laakiin wax lacag maadan bixinin maalin walba kuu shaqaynaya marka bisha intaana la gaarin haddii aad samaynaysid xisaab xir dee inaad ku xisaabtantid waayo lacagtaas dee in lagugu leeyahay inay tahay oo marka waa qaan oo adiga inaad iska bixiso loo baahan yahay
inkastoo lacagtii kaash ahaan bangigaaga ay ka bixin xisaab ahaan waa inaad ku xisaabtantaa lacagtaas in lagugu leeyahay laakiin waa accrued expense la yirahdaa marka total current liabilities meesha isku imaanayo kadibna waxaa ka baxaayo long term liabilities iyadana gooni u baxayso oo ah xisaabaadka sanad ka badan qaantana lagu leeyahay haddii sanad ka badanna loo ogol yahay 15 sano 10 sano 2 sano 5 sano intay ahaataba lacag aan laga rabin sanadkan performancegeena wax qabadkeena inaan ka saarnana laga rabin oo muddo dheer kadibna laga sugaayo waan qoranaynaa laakiin halkaan ay noo istaagaysaa iyadana waa long term liabilities total liability 75000 waa saa ugu jeediin waxaa haddana ma aragtay aan fiirinaynaa owners equity haddaa fiirisin lineka dhexda assets liabilities and equities weli waxaan daba soconnaa nidaamkii aan koob kusoo bilownay owners equities waxa weeyaan the owners business interest daaqada uu ka eeganayo waaye ninka milkiilaha ah halaha uu ka leeyahay waa ganacsiga waxaan xisaabaadkan kale waxa laga yaabaa qaan in lagu maalgeliyay hadda meesha waxaan uga jeednaa qaanta oo kaliya waxay maraysaa 75000 soo maaha 75,000 laakiin marka aad fiirisid buug ahaan waxa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood assets aan soo iibsanay qayb inay qaantaas ay iibisay soo maaha laakiin equity-ga wuxuu fiirinayaa oo kaliya inta ganacsaduhu uu ka eeganaya meesha common stock caadi ahaan waxaa la bixiyaa saami shirkadaha waaweyn marka ordinary shares waa la dhahaa common stock waa la dhahaa it depends British standards iyo American standards midka wax ku baratay ay ku xiran tahay laakiin common stock waxa waaye ordinary shares waaye marka iyo retained earnings faa'iidadii sanadkii hore la faa'iiday ee la soo wareejiyay reserve ahaan iyo faa'iidada sanadkanba meeshaan imaanayaan retained earnings waa performance waa income and expenses account laga soo guurinaya waxay isugu imaanayaan marka total owners equity 107,000 kadibna markii la isku daro 107,675 ee liabilities ka ah 182,600 haddaad eegto total assets ay la mid tahay waxaan marka aan dib ugu soo celinay assets equals liabilities plus capital very important waxa mar walba aan ku celcelino okay maaliyadda halkaas aan uga baxnay maaliyadda marka maaliyadda financial accounting markii la diyaariyo dee sheekada meesha kuma eka weli waxaa jirto other stakeholders waxaa jirto daneeyayaal kale ee maaliyadaada eegaya tax accountantaa jiro xisaabiye canshuuraadka oo keliya u qaabilsan xisaabiyahaas wuxuu xisaabiyaa in dowladda waxa ay kaa filanayso uu xisaabiyo dowladdu waa stakeholder waxa weeye stakeholder weeye waa daneeye waa waxay daneynaysaa every business dowladda lacag ay maaragtay soo amaahato iyo lacag ay citizenskeeda ay ka qaado oo keliya ay ku maareysaa waxyaabaha infrastructure-ka iyo economic activities waxa loo yaqaano ay ku maareysaa marka caadi ahaan adduunka waa qasab canshuuraadka kama gaba kartid waa qasab weli canshuuraad systemka wadanka hadda ma degana laakiin wadan walbo adduunka ku yaalo canshuuraadku waa qasab waa arki doonaa ciday ku waajibto marka canshuuraadku marka lacagihii hadda aan dhahnay balance sheetkii hadda aan dejinay financial accountant soo dejiyay soo ma ahayn financial accountant kadib waxa u sii maartay bilaabaya xisaabtiisii tax accountant